markii ugu horreysay ciidamo uu wato jenaraal mahad cambaashe ayaa lagu arkay aagga magaalada Lughaye. sargaal sare oo ka tirsan ciidanka beesha ciise ayaa warkaasi xaqiijiyay tan oo noqonaysa ceeb iyo fadeexo Somaliland ah haddii mahad cambaashe halkaasi lagu arko. waxaan kuu soo gudbin doonaa halka uu mahad cambaashe xilligan ku sugan yahay, gaadiidka dagaal ee uu wato, ma wuxuu rabaa inuu dagaal la galo beesha ciise, maxay tahay sababta halkaa loo geeyey, dhammaan waan kaaga jawaabi doonaa. sidoo kale qodobada kale ee degdega ah waan kuu soo gudbin doona waxaa qayb ka noqon doona faahfaahinta macluumaadka wararka sheegaya in 100,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka Somaliland ay iskaga baxeen gobolka Awdal iyagoo ka cabsi qaba duulaan weyn oo uga yimaada beesha ciise. waan kula wadaagi doonaa. waxaan kaloo kuu soo gudbin doonaa diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayuu saacado kooban ku jiray hawada magaalada Saylac ee gobolka Awdal iyagoo markii dambena dib ugu laabtay fariisimihii ay ka yimaadeen ee magaalada Jigjiga. qodobadaas iyo waxyaabihii kale ugu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada. haddii tahay markii kugu horreysay ku soo biri darajo waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno. aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb. habeen wanaagsan saaxiibayaal, soo dhawaada. qodobkeena ugu horreeya ayaan ku bilaabayaaye sargaal sare oo ka tirsan ciidanka beesha ciise ayaa goordhow ii xaqiijiyey war aniga la yaab iyo amakaag igu noqday, kaasi oo sheegaya in mahad cambaashe iyo ciidamo uu wato la geeyey gobolka Awdal. Somaliland ma waxaa ka dhammaatay tabartii ay kula dagaalamaysay beesha facweyne ciise? muxuu yahay sargaalkan horgalka ah ee awal ku fashilmay dagaalkii gobolka Sool haddana la geeyey gobolka Awdal si uu beesha ciise ula dagaalamo? ninkan waxaa la yiraahdaa mahad cambaashe, waa nin caan ah, waa nin si weyn looga yaqaano gobolka Sool iyo gobolka Sanaag, waa nin ka soo jeeda beesha Dhulbahante, beesha Jaamac Siyaad, waana horgal muddo ay Somaliland ku shaqaysanaysay. dagaalkii laascaane ee dadka rayidka loo adeegsaday lagu laayay ayaa loo adeegsaday. waxaa sidoo kale loo adeegsaday dagaalo qabiil oo ka dhacay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Somaliland ayuu mushaar ka qaataa. haddana waxaa la rabaa in loo adeegsado baabi'inta iyo barakicinta dadka rayidka ah ee shacabka reer ciise. inkastoo ciidamada beesha ciise uusan dagaal kala hortegi karin mahad cambaashe, haddana lama ogaa in loo diyaariyey inuu dagaalamo iyo in kale. muuqaal qarsoodi ah oo aan goordhow ka helay sargaal ka tirsan ciidanka beesha ciise ayaa wuxuu ku tusinayaa sida uu mahad cambaashe xilligan dagaalka ugu diyaargaroobay. yacni markaad eegtid dagaalka siduu ugu diyaargaroobay iyo xaaladiisu sidee tahay, dabcan waxaa kuu muuqanaya in ninkan loo diyaariyey inuu dagaalka qayb ka noqdo. dhowr xubnood oo saraakiil ah oo aan la hadlay ayaa waxa ay ii sheegeen in ay jirto aragti la xiriirta in mahad cambaashe la damcay in dagaalka la geliyo oo toos dagaalka uga qayb qaato, laakiin xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in dhowr jeer arrinkaasi dib loo dhigay isagoo Cabdiraxmaan Cirro ka cabsaday in la yiraahdo ciidankii Somaliland markii wax ka qaban waayeen gobolka Awdal ayaa nin beesha Dhulbahante ah loo adeegsaday dagaalka. dabcan wuxuu ka cararayay aragtida la xiriirta in eryan noocaas banaanka ay yimaadaan. waxaan baaris ku sameeyey haddaba si aan warka xaqiiqadiisa idinkugu soo tabiyo mahad cambaashe, halka uu ka yimid, halka la geeyey, hubka uu haysto iyo askarta. intaasaan hadda soo ogaaday. mahad cambaashe bishii hore 13 ayuu ka soo ambabaxay gobolka Sanaag, gaar ahaan Ceergaabo. Ceergaabo ayaa ninkan loo qorsheeyey inuu difaaco markii xiisada Khaatumo iyo ama Waqooyi Bari iyo Somaliland xoga ay qabowday oo xiisad ay ka soo gorortay gobolka Awdal ayaa halkaa loo wareejiyey. 2 guuto oo ah 200 oo askari oo ku hubeysan qoryaha durundooriga u dhaca ayaa gacanta loo geliyay mahad cambaashe. ciidankaasi waxaa la sheegay in ay yihiin ciidamo si gaara u tababaran, muddo dagaalamay kara, gobolka Sool ka soo dagaalamay, gobolka Sanaag ka soo dagaalamay, haddana la rabaa in lagu dilo dadka rayidka ah. laakiin baa ka horeysa nimanka uu lacala la dagaalgelayo ee ciisaha ma yaqaano. nin buur ka dagaalamay iyo nin bacaad ka dagaalamay intaba laguma degdego. sababtan kuu sheegayaa, nin buur ka dagaalamay waa nin halisa, nin yar, nin sahlan maaha. ninku hadduu marba buur ka dagaalamo qoriga si fudud u ridi yaqaanaa, waa shishyahan, waa dagaalyahan. ninkan laleeyahay mahad cambaashe wuxuu ka soo dagaalamayay meelahan oo buuraha aan lahayn ee gobolka Sanaag, aaga Ceergaabo, waliba gobolka Sool 2023 bishii 8
maalin jimcaha markii la qabanayay Faysal Cabdi Bootaan kabtay ha furato waa ka dhacday ninka la yiraahdo Mahad Cambaashe marka hadda Somaliland inay naf ka raadisay in Cambaashe baa waxay noqotay wax ajiib ah oo la yaab ah oo ama kaag noqotay waxay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in bilihii la soo dhaafay ay jirtay aragti la xiriirta in Cambaashe in la dagaal galiyo yani gobolka awdal xaaladiisa lagu wareejiyo laakiin haddana waxa laga cabsi qabay in maxaa Cambaashe gacanta lagu dhigo ninka waa loo cabso nimanka la yiraahdo ciisaha niman loo cabsado ma sida ay wax ku wadaan sida ay hadda wax u dhaqaajinayaan iyo xaaladoodu siday tahay dad badan ba waxay aaminsan yihiin nimanka la yiraahdo ciisaha inay yihiin niman dagaalyahano ah oo lacalla hadii ay noqoto inuu Mahad Cambaashe dagaal la galo in Cambaashe uu ka sheekeyn doono ama waa la dili doona in Cambaashe am ciisaha ayuu isku dhiibi doona wax ka dhaxeeya ma jiraan waayahay qodobkaas wuxuu ku soo kordho wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tabin doonaa markana waxaan eegaynaa wararkeena kale boqolaal kun oo asgari oo ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa la soo warinayaa inay gabi ahaanba iskaga baxeen gobolka Awdal ciidankii Somaliland ee badi ku sugnaa gobolka ayaa la soo warinayaa inay halkaas iskaga baxeen warar iyo macluumaad soo baxayaahi waxa ay tilmaamayaan in sababta ugu weyn oo ay halkaas uga baxeen ilaa hadda aan la ogeyn faahfaahino dhowr ah ayaa soo baxaya haddaba oo ku saabsan sababta ay ka dambaysa bixitaankooda waxa ay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in tani ay tahay arrin cajiib ah oo ku saabsan in beesha ciise ay culays xoog la saartay ciidanka Somaliland taasoo dabcan ku kaliftay ayaa la leeyahay ciidanka Somaliland inay halkaas iskaga baxaan ciidankii ku sugnaa aaga tuulada Xariirad iyo ciidankii ku sugnaa aaga tuulooyinka kale ayaa la soo warinayaa inay halkaas iskaga baxeen waxaana ilaa hadda lala yaaban yahay sababta xilligan ku kaliftay in ay ciidankaas halkaas iskaga baxaan culaysyo inay jiraan dhowr ah iyo arrimo kale ayaa wuxuu yahay mowduuca ugu weyn ee hadda taagan waxaana xogaha iyo wararku ay leeyihiin waxaa macquul ah in ay wax badan isbedelaan oo ku saabsan in beesha ciise ay deegaanadaasi qabsato waa qodob dabcan hadda muddo soo jiitamayay oo ay dad badan aaminsan yihiin in ay jirto aragtidaasi beesha ciise iyada laftirkeedu inay ciidamo fara badan oo laga keenay meelo fara badan oo ka mida gobolka waa dowlad deegaanka iyo deegaano hoos yimaada ayaa dabcan waxay ku tusinaysaa in xilligan ay jirto aragti la xiriirta in xataa laga yaabo in ay sheekadu tagto meel aan waxba laga qaban karin oo la arko isku dhacyo waaweyn oo ciidamo ah oo ciidanka Somaliland iyo kuwa ciisaha dhex mara dhowr sargaal oo aan la hadlay oo ciisaha ah waxay goordhow ii sheegeen in aysan iyagu hadda walwal iyo walbahaar toona aysan ka qabin in ay deegaanadoodu dib ugu laabtaan iyada oo Somaliland lagu eedeeyay in ay dhowr jeer carqaladaysay hanaanka iyo dabacsanaanta ka jirta gobolka oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda dab kale ku sii shiday qodobkaasi wuxuu ku soo kordhay wararkeena dambe Ethiopian ugu dambeyn waxa la soo warinayaa in ay kordhisay diyaaradaheeda dul heehaabaya xuduudda Ethiopia iyo sidoo kale Somaliland dhowr jeer oo kala duwan diyaaradaha qumaati oo kaca ee helicopterka la yiraahdo ee Ethiopianku ay isticmaalaan ayaa la soo warinayaa in ay dhowr mar oo kala duwan ay jirtay aragti la xiriirta in beesha faca weyn ee ciisaha dabcan lagu taageerayo waxay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in laga cabsi qabo in xaaladdu ay faraha ka baxdo sababtoo ah ciidamada Somaliland xuduud ay ku sugan yihiin sidaas la mid ah ciidanka Ethiopia qayb xuduud ku sugan marka waxaa jirta aragti iyo kala shaki maalmahan dhan socotay oo la xiriirta in ay xaaladdu faraha ka baxdo dabcan qodobkaas ayaa jiray laakiin xogaha iyo wararkan helayna waxa ay tilmaamayaan in cabsida arintaasi ku aadan ee ah in isku dhacyo ay yimaadaan ay gaartay halkii ugu sareysay wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal qodobada aan idin dul marnay wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tubin doonaa haddii taa markii kugu horeysay daraja media ku soo bir wararkii warbixinada halkan aan ku daabacno ayaa dabcan mar walba la socon doontaan soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan sharaf iyo karaamo muuqaalka haddaan nala dhamaysatay leegtaa ka hilmaamin soo dhawaada saaxiibayaal